dowlad la'aantii iyo dowladda aan ihtimaamka diinta siinaynin waxay keentay in inta yani dad waa fikireen nimanku ma fikir xuma waxay dhaheen dadkan badanka haddii la riixo kulligood ay wada daarmayaan ama haddii la riixo ay wada damayaan waa kee waxaa la diinta islaamka waa meeshaas laga geliya marka diintii maadaama dowlad ilaalinayso oo ximaayadeynayso oo xumaanta iyo maxaan ku rahaa waxyaabaha ka ilaalinaysa aanay jirin qof walba wuxuu rabo soo dhex gashaday tafsiirka rabo soo dhex gashaday kitaab yaroo rabo ku soo darsaday wuxuu rabo la yimid maanta marka waxaan joognaa waa aragnay meeshana laga hayo waa aragnay maanta marka waxaan joognaa meeshii aan u guntan lahayn oo u istaagi lahayn kow waxaa ugu horeeya inaan horta xagga maskaxda iyo caqliga iyo fikirka horta inaan xor ka noqono maxaan xor u noqonaynaa shareecada islaamka ee saxda ah waa sidaas inaan ku adkaysan karno oon dhihi karno oon u istaagi karno xag jir waayaan lagu dhihin murtad waayaan lagu dhihin maxaa ku soo xidhi iska aamuso marka wixii aad u jeedadka aamuse meesha aniga aan culamo allahi aan leeyahay maskaxda laga xuruuba taas waaye war wixii khalad waa khalad sidoodaba hadday diin ahaan khalad u yihiin waa khalad caqliga caadiga hadday khalad ku yihiin waa khalad in la yiraahdo marka waxaan waa qalad yani sama adduunyo iyo mid aakhir intaba waa ku jiraan horta caqliga inaan ka xuruubno oo aan maskaxda aan banaysanaano waxa soo hartay dowladda diinta sida haddaad culimada inta ka hadlayso u dhawaajis dadka iska lahaa ayagaa ilaasho jiray ayagaa wixii jiray tacliintan caadiga ah iskoolka ah ee la waxeeyey nidaamka waa aragtay iskuulka nidaam uu leeyahay wasiirka tacliinta iyo raggii tacliinta dhan waa joogaan yacni iska dhaaf manhaj iyo waxa iyo marka laga yimaado qolka iskuulka noqonaya fasalka noqonaya lafsadiisa nidaam uu leeyahay darishada saas waa inuu lahaadaa intaas kama yaraa karo saas waa inuu u yaalaa aaryadu waa inay dabayshu waa inay soo geli karto labada waqti kamid a qoraxdu waa inay soo gashaan iyo wax lamid ah waa nidaam degan oo buug ku qoran annaga marka barashadeennii diinta in aan buug ku qorno oo aan dhahno saan waaye sida saxda ah oo diinta loo baranayo maxaa diidaya dugsi qur-aanka waa saas masaajidku waa saas dowladda ma leh dugsi qur-aanka dowladda ma leh masaajidda dowladda ma leh sidaas daraaddeed magaalada markaad dul marayso diyaaradaha iyo asaaradda markaa fiiriso minaaradaha beled muslim inuu yahay marmarka qaarkood shakiya kaa galaya leanna magaalooyinka islaamiga waxaa lagu yaqaanaa minaarada lagu yaqaana minaarada xag ka taagan xag ka taagan xag ka taagan inta minaarad yar oo maxaan ku yidhahdaa derbigaba aan dhaafsiisnayn waay nin maskiin oo niyadsan oon dhaqaalo badan haysanin oo jecel diintaa dhisay awooddiisa inta la ekaatay dowladday ahayd inay dhisto masaajida waaweyn oo minaaradahooda dhaadheer yihiin oo maxaan ku rahdaa meel walba dowladday ahayd nidaam inay ka dejisay tiraa masaajid mala dhis ahaa saan waaye masaajidka waxaan waa masaajida aad aaday salaada ku galay masaajidka baabuurka meelaad dhigatid meel haddaa baabuur wadatid laamiga dhinaciisaad uga tegay لأن دول يرون من محسن أو صدقيستي أما نين أو كسر وبيساك بحي أي مساجد وياه الدنيا لو تكتر مساجد سبيا لو أسعارتين مراكز إليهن مكاتب إليهن ما راح عروض الوعي عصيب ما راح محمد هذا يدرس إلي ما له صوت الأولى هواي وصلت وحاربنا تعليم هاي الحكمة دي عربي هذه عنق يركع وح الله شيء وحي لم يدين نقشة نجح الروح حق يسوما نقشة نجح الروح حق كل سنة كبعد وقطع الله سوما عنق يركع دهنس جوجنا وح الله شيء سداس قلب جيس وحدنا أنا يولد إلى عمر جيس إلى ومتوجسي وجسي سداس درادي مجتمع ماشي وكتوساي oo mujtamac macna leh oo aan isdilin oo aan iskhiyaamin oo dhiigooda aan daadinin oo sharaftooda iyo karaamadooda aan meel uga dhicin oo maxaan ku iraadaa ilaaliyo si ay u noqdaan cunugaas waa in laga soo bilaabaa cunugaas yarka ah waa in laga soo bilaabaa oo ku soo barbaaraa marba inta uu qaadi karo inta uu fahmi karo marba in loo sheego ilaa uu ka noqdo shakhsi toosan
oo ku toosan muxuu ahay sharciyada islaamka oo ku toosan muxuu ku rahay dadnimada iyo maxaan ku rahay sharafta iyo karaamada adduunyada iyo mid aakhirada